qisadani waa dhab waxayna ka dhacday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana inoo soo diray wiil magaciisa ku koobay Kayse oo doortay inuu la wadaago bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada maanta si uu buu yiri ay wax ugu qaataan ama ay cashir ugu noqoto wuxuu ku bilaabay qoraalkiisa waa maalmo aan ka harin xasuusteyda waana dhacdo igu beertay oo ku taalo iyo boholyow ii horseeday inaan ku noolaado murugo iyo nolol mugdi ah waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku jira da'da 20meeyada waxaana ahaa arday dhigta mid kamid ah jaamacadaha magaalada Nairobi inta waxa ii dheeraa inaan xilliga aanan waxbarashada ku jirin aan ka xamaalan jiray suuqa xaafada Islii ee magaalada Nairobi anigoo ku lahaa buu yiri ganacsi yar oo ay Soomaalidu u taqaano warato si aan ugu maareeyo noloshayda laakiin waxa ay soo martay anigoo jooga goobteeda ganacsiga maalin ku noqotay qalbigayga bar madow oo aan ka go'in waxay gabi ahaanba bedeshay buu yiri noloshaydii iyo himiladii aan higsanayay xilli barqo ah anigoo markaa ganacsiga furay suuqana saxmadda iyo mashquulka ka jira aawadii ay adag tahay xitaa in lays arko ayaa mar qura waxay indhahaygu qabteen gabar ayaan adduunka dushiisa saarnayn wax aan ku sifeeyo oo meel dhowr mitir ii jirta dhankayga midig ka soo socota dalaalka midabkeeda oo kiyaalaha ay wadatay iyo iftiinka qoraxdu markay isqabteen waxa ka soo baxay muuqaal ay igu adkaatay xitaa inaan indhaha u dhameystiro anigoo sii jaleecaya ayaan mar qura waxaan meel aan iga fogeyn ka maqlay walaal maad ila hadashi mise waaba gabadhii oo doonaysa inay wax iga iibsato anigoo u eg sidii qof hurdo looga naqshay ayaan gabadhii si waaya aragnimo leh ugu jawaabay ugana iibshay wixii ay doonaysay iyadoo dareensan inaan iyada ku maqanahay taasina waxay inoo noqotay fursad aan isku baranno iskuna weydaarsano kontaktiyadeena ama taleefanadeena waxay ii sheegtay inay tahay carmal ganacsato ah oo u kala gooshta dunida haddaba maalinta wixii ka dambeeyay waxaynu noqonay dad aad isugu soo dhawaaday waxaynu bilownay inaynu wada waraabno wabiyada galgacalka waxaan u qaaday jacayl baaxad soor ah ilaa aan iyada mooyee hilmaamay noloshaydii kale waxay ahayd markaynu kaftamayno sheekaysanayno gabar aad u xishood badan asturan ma ogolayn inaan gacanta qabsado jirkeedana aan taabto si aan ugu dagmo ama aan ugu dhaco shabaqa u fidsanaa waxaan ku kulmi jirnay inta badan hoteelada oo aynu ka wada cashayn jirnay maalin maalmaha ka mid ah ayay isoo wacday waxayna iga codsatay buu yiri in aan gurigeeda kula kulmo waan ka aqbalay waxaana ballanay xilli casirliiq ah oo ay qoraxdu baalka sii qarsanayso ama ay sii dhacayso waan maalintii aan ku seegay noloshayda waxaan u tagay buu yiri iyadoo labisan dharkii jiifka oo aanan weligay ku arkin ama aanan horay uga baran aad ayay iigu soo dhawaatay waxayna iga codsatay inaan la jiifto haddaba waxay ahaataba waan ka aqbalay buu yiri muddo 7 ah kadib waxa dhacay buu yiri shil inuu galo wiil aan saaxiibo ahayn aad ayuu u dhiig baxay waxaana ku qasbanaaday inaan dhiig u shubo markii aan dhiiga shubay daqiiqado un kadib waxa igu soo laabtay diktoorkii oo murugaysan aad ayaan u naxay waxaana ku yiri buu yiri masaaxiibkay baa dhintay laakiin waxa uu ii sheegay diktoorkii inaanan dhiig u shubi karin oo aan qabo cudurka AIDS-ka waxay igu noqotay filawaa iyo wax aan iga daadegin ilaa aan tiro 5 mar baaritaan maro buu yiri oo la ii xaqiijiyo inaan ahay bukaan cudurka AIDS-ka la ildaran kala iga cayn wareegtay waxaan marti u noqday buu yiri naxdin iyo nabar xanuun badan waxaan hilmaamay naftaydii iyo hawl kasta oo aan lahaa ilin baarushaysa korkayga hurdana waanba kala guurnay muddo 5 maalin ah anigoo aan qofna wicin gurigana ka bixin ayaa waxa isoo wacday mar qura buu yiri gabadhii uu xiriirku ina dhex maray waxayna i weydiisay waxa igu dhacay oo ay u weysay xiriirkayga anigoo niyad jab weyn uu iga muuqdo ayaan u sheegay buu yiri in aan cudurkaasi la ildaranahay hase ahaatee intay qosol yar dhag ka siisay oo ka jan ah ayay ugu tiri buu yiri ma intaas kaliya baad iiga maqnayd waxay ii sii raacisay adigu waxa tahay qofkii labaad ee aan cudurkan qaadsiiyo waana sii wadi doonaa sababtoo ah
ragga cadaawad baa inaga dhaxaysa wayna igu damisa taleefankii buu yiri waa xiriir aan ka shalayay waxyaabo badan oo aan gadaal ka ogaaday haddaan horay ka ogaan lahaa tani iguma dhacdeen buu yiri haddaba wuxuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa dhalinyarada waxaan uga digayaa sinada maxaa yeelay sinadu waxay leedahay raad dambeed aad u xanuun badan waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka goyn xasuustaada adigoo fariin inoo